dadka gaalkacyoodna runtii waxay muujiyeen sida ay ugu ooman yihiin sida ay ugu baahi qabaan qarannimada Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa socdaalku inuu sii socon doono ilaa iyo bartamaha Soomaaliya ilaa iyo Dhuusamareeb uu gaari doono socdaalkan wuxuu ka soo bilowday maanta waa maalintii 8aad maalintii 7adii bisha waxa uu ka soo degay madaxweynaha xarunta dawladda Puntland ee Garowe halkaas oo runtii si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay oo dadku sidii dadkii oo kale ay ahaayeen taasoo ka turjumaysa muujinaysana in ay dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay taageersan yihiin dawladooda kuna kalsoon yihiin dawladnimo iyo qarannimo ay u ooman yihiin maalintii 8aad waxa xariga laga jaray garoonka caalamiga ah ee Garowe oo loogu magac daray General Maxamed Abshir Muuse taliyihii ugu horeeyay ee aasaasay ciidanka Soomaaliya gaar ahaan booliska Soomaaliyeed loogu magac daray inta kadibna madaxweynuhu socdaal dheer oo 450 kiiloomitir ah ayuu waxa uu ku maray ilaa xarunta ganacsiga ee Boosaaso isagoo ku hakaday magaalada Qardho oo uu ku soo dhaweeyay boqor Burhaan boqor Muuse halkaasna runtii aad iyo aad soo dhaweyn diiran loogu sameeyay hadiyada qaali oo dhaqanka lagu guddoonsiiyay madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ka mid ahaa siyaasi Salaad Cali Jaalle madaxweynaha dawladda Puntland intaas oo dhan hadiyada la guddoonsiiyay si gaar ah madaxweynaha loogu sharfay bilad maamuuseed Soomaalinimo sidoo kale la siiyay faras fardaha Soomaalidu ay dhaqanka u leedahay goobtaas oo ka mid ah Qardho xarumihii daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo deganaan jiray haddana xarunta dhaqanka iyo waxa weeyaan oo boqor Burhaan ku sugan yahay halka waxa laga sii socday ilaa iyo degmada Waaciya degmada Carmo ay ku taala kuliyadda ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ku taala ayaa la sii maray inta madaxweynuhu meelaha uu marayay waxa jiray mashaariic waaweyn oo la dhagax dhigayay oo bulshadu ay isku tashanayso oo bulshadu ay dhisanayso oo iska wax u qabso bulshadu ay fahantay ayaa la sii dhagax dhigayay Boosaaso ayaa la gaaray oo madaxweynuhu bulshadeedii gobolka Bari uu kala kulmay markuu Boosaaso joogay iyo markuu Garowe joogay dadku waxay ka imaanayeen ilaa 500 kiiloomitir magaalooyin jira ayay ka imaanayeen iyagoo waxa weeyaan intaas u soo maray inay madaxweynaha arkaan inay safarka la qaybsadaan socdaalkan waxa laga dheehan karaa dhowr waxyaabood inuu Soomaaliya jiro dhul weyn oo nabad ah oo waxa weeyaan ay ciidamo shisheeye aysan joogin ciidamo Soomaaliyeed ay joogan amnigiisa ay sugayaan waxa kale oo laga dheehanayay dadka Soomaaliyeed taageerada iyo kalsoonida ay u hayaan dawladooda waxa kale oo laga dheehanayay dadka Soomaaliyeed sidii dawladnimada ugu bislaadeen waxa kale oo laga dheehanayay Soomaalinimada iyo Soomaalidu say isku jeceshahay iyo sida ay isu soo dhaweynayaan iyo sida ay isugu oomanayeen fariinta ay farayeen siyaasiyiinta golayaasha ismada dhaqanka bulshada siyaasiyiinta aqoon-yahanka ardayda dhalinyaradu waxay ahayd madaxweynaha Soomaaliya maanta madaxweynaha Soomaaliya maanta isu soo celi madaxweynaha maanta Soomaaliya meesha ay taagan tahay garab iyo gaashaan anaga ku noqonayna meel ka fiican gaarsiin runtii waxa madaxweynaha loo muujiyay inuu haysto shacab aad iyo aad u ballaaran oo ogol madaxtinimadiisa una heelan dalkooda sidoo kale waxa runtii mudan in la xaqiijiyo inay jiraan deegaan aad iyo aad u ballaaran oo Soomaaliyeed oo aysan ciidamada shisheeye aysan joogin oo iyaguna ciidan Soomaaliyeed amnigiisa sugayaan ciidan Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan socdaalka maanta madaxweynuhu halkan ilaa iyo Boosaaso oo waxa weeyaan isku jira 750 kiiloomitir waxa uu ka sii anbabixi doonaa ilaa iyo Dhuusamareeb xarunta gobol Galguduud ayuu iyaduna sii tagi doonaa isagoo xarunta dawlad goboleedka Galmudug ee Cadaadis sii mari doona hadda wixii ka dambeeya socdaalku wuxuu ahaan doonaa socdaal taariikhi ah oo runtii ummadda Soomaaliyeed dhulkeeda kala bar wax ku dhow oo madaxweynuhu maray waxaan rajaynaynaa in safarkan uu noqdo safar 10 laga barto 10 looga barto dawladnimada 10 looga barto nabadgelyada 10 looga barto ummadda Soomaaliyeed siday dawladooda u taageersan yihiin siday dawladnimo ugu ooman yihiin siday dawladnimo u rabaan sidoo dalka Soomaaliyeed nabad u yahay siday dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed diyaar ugu yihiin inay dhistaan sida dadka Soomaaliyeed ay ugu diyaarsan yihiin dalkooda inay difaacdaan amnigiisa ay sugaan ayna ku filan yihiin oo ay muujinayaan in ciidan shisheeye aysan u baahnayn wafdiga sida horey loo arki jiray waxaan qayb ka ahayn ciidan xoogan oo sida midowga Afrika nabadda deegaanadan iyo socdaalka madaxweynaha oo ku yimid markii la isku daro muuqaal caynkay ah ayay dadka ka maqan u gudbinaysaa waxay u gudbinaysaa dadka Soomaaliyeed inay leeyihiin dhul weyn oo nabad ah oo dad Soomaaliyeed ay amnigiisa iyo wiilal Soomaaliyeed ammaankiisa ay ka shaqeeyaan waxay kaloo muujinaysaa oo ka turjumaysaa ku tiirsanaan shisheeye dadka Soomaaliyeed inaysan u baahnayn amnigoodana aysan cid kale ugu tiirsanaanayn ee iyagu ku filan yihiin sidoo kale waxaan ku sugan tahay waxa la arkayaa laamiyada iyo horumarka iyo jidadka la dhisay iyo waxa weey guryaha la dhisay iyo mashaariicda waaweyn ee la maalgeliyay mashaariicda la dhagax dhigayo inahaas oo dhan waxay ku tusaysaa dadka Soomaaliyeed inay gaareen waqtiga ay isku tashan lahaayeen horumarkoodana ay isku tashan lahaayeen amnigoodana ay isku tashan lahaayeen ciidanka qalabka sida Soomaaliya qaybihiisa kala duwan ee socdaalka nabadda ee madaxweynaha inta ugu badan iyagu amniga ka shaqeynaya iyaguna fariin neece u diraysaa waxaan u diraynaa dalkan ciidankiisa Soomaaliya waxay lahayd taariikh dahabi ah
wuxuu ahaa dalkii Soomaaliya ugu adkaa Afrika ee isticmaar iska caabiyay Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu horeeyay ee diyaarada lagu weeraray markii la jabin waayay halgankii gobonimo doonka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu hogaaminayay ee daraawiishta taas ka bacdigeed Soomaaliya waxay ahayd dalkii Afrikaanka ahaa ee ugu awoodda badnaa ee Afrika xuquuqdeeda raadiyay ee Afrika xoreeyay Namibia Angola Tanzania Uganda waxaas oo dhan koonfur Afrika dalkii xornimadooda raadiyay buu ahaa markii ay Soomaaliya ahayd ciidankii Afrika ugu awoodda badnaa ee libaxyada Afrika la oran jiray ciidanku fariinta ay dirayaan waxa weeye waan awoodnaa inaanu noqono ciidankii Soomaaliya ugu adkaa booskii ay Xalane iyo General Daawud iyo raggii la midka ah ay buuxiyeen maanta waxaanu diyaar u nahay ay leeyihiin inaanu buuxino Soomaaliya nafteeda u hurno dhiigayaga u hurno haybadii iyo qarannimadii ay lahayd u soo celino hawadeeda u ilaalino baddeeda u ilaalino xuduudaheeda u ilaalino dadkeeda sharafteeda iyo karaamadooda u ilaalino cadawga ka ilaalino musuqmaasuqa kala dirirno qabyaaladda kala dirirno eexda kala dirirno argagixisada kala dirirno waa ku filanaa ayay yiraahdeen waana dhambaal ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u dirayaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed waana mid farxad gelinaysa ummadda Soomaaliyeed in arkaan 750 kiiloomitir oo madaxweynahoodii amnigiisa ay sugayaan wiilal Soomaaliyeed fariinta ugu dambaysa ee aad u dirayso shacabka iyo ciidamada waxay noqonaysaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan u dirayaa Soomaaliyay dal dadkiisa dhisa dalkan inaga iska leh inaga magac iyo maamuus yeeli karna inaynu burburkii iyo qabyaaladii iyo wixiina soo burburiyay ka gudubno inaynu Soomaaliyay tooso isku tiirsadayay maanta joogtaay inaan iraano hadaanu Soomaalinahay waadnu toosaynaa hadaanu Soomaalinahay waa isku tiirsanaanaynaa hadaanu Soomaalinahay kaayaga taagta daran waa taakulaynayna inaynu inagu isku tashano dalkeenana aynu u tashano dal waxaynu haysanaa hodana laba badood leh laba wabi leh khayraad fara badan leh macdan fara badan leh dhulkaas waxa weeyaan cadawgu dhawaa inoo quuri laayahay dhulkeena waa inaan ilaashanaa dawladnimadeena waa inaan ilaashanaa dadkeena waa inaynu heshiisanaa dadkeena waa inaynu sida isugu duubnaa lahaayeen oo ay mid noqon lahaayeen aynu ka wada shaqeyno aragtiyaha siyaasadeed lagu kala duwan yahay siyaasiyiinta kala duwan waxaan leenahay kala duwanaanshaha iyo siyaasadda lagu kala duwan yahay yeysan dalka u sababin in la burburiyo ay han noqoto kala duwanaanshaha iyo mucaaradku mid wax saxa mid wax dhisa mid wax horumariya ayuusan noqon mid wax dumiya cadawga maanta inoo tashaday ee dalkeena faragelinta ku haya haday Carab ahaan lahayd iyo haday Afrikaan ahaan lahayd haday shisheeye kale ahaan lahayd waa inaynu meel uga soo wada jeedanaa dalkan inaga iska leh qabbay Soomaalidu aan lahaan jirnay qabkii aynu lahaan jirnay waa inaynu soo celinaa waa inaan dalkeena faragelintiisa cidna aynaan u ogolayn Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa kamid ah gabayadiisii dalka malihid aniga ku iri dooro weynaha Ingiriiska qurmuunka badan oo baarada badan dalkan malihid anaa ku irayo yiri haday Carab iyo Afrikaan inoo taliyaan oo dalkeena ay farageliyaan oo ay dalkeena burburiyaan waa ayaan darada maanta inuu ku dhacday mana aha mid nasabadii Soomaalida lagu yaqaanay waxa weeye inaynu Soomaalinimadii iyo qabkii iyo hankii ku noqono cidna aynaan ugu ogolaan dalkeena inay farageliyaan dawladnimadeena inay farageliyaan amnigeena inay farageliyaan gobonnimadii Soomaalida aynu u noqono waxaynu inagu ku kala duwanahay inagu aynu ku heshiino waxaynu inagu kala isku mucaaradayno inagu aynu isku tixgelino laakiin cid kale ayaan ka ogolaan inay soo dhex gasho waxa uu yiri abwaankii Soomaaliyeed caanka ahaa Yaasiin Cismaan Yuusuf Keenadiid niman sharafta Soomaaliyeed shayna dhaafsan baanahay niman kala shirshirintooda ka shaqaynin baanahay niman shawr ajnabi iyo shilin jeedan baanahay midda aynu ku cibra qaadano waa dadkeenii hore waxa ay yiraahdeen midaas ayay ahayd